كلية بدبادين كرا دلك طلعي سومالي طلعي دولة داي طلعي عيدان كيجي جيستيغايو طلعي ما مانتا أي كينيا يغو دولك يجي هايستا أي كفر لين إني كسو دولكان وإنتي هدانا قاتان waxaan leeyahay ninka dhoofayo joog ninkii dhuuntada soo bax ninka dhageelo oo hadal dhufays nin qotay waa fulaya dhamaanteen weerar baana waxaan leeyahay dawladayadu waa inay si degdeg ah codka shacabka raacdo oo Kenya ugu geyso calaaqad si degdegna waa inay u dagaal gasho daraarta afraadna waa inay Nairobi tagaan ciidamayadu oo ay qabsadaan adduunkana waxaan u sheegaynaa caalamka inay gardarradu nagu badan tahay waxay oran jireen unadu ama la sheegi jireen waxay oran jireen dawlad xore lama weerari karo waana la weeraray maxay ka hadleen xasan sheekh tuutaha ka shaqalanta caawa ku bariyo tuutahu adigu kugu jira nagu hogaami ma toliid ma Soomaali liid ma ciidan liid ma dhalinyaro liid ma hub liid ma dhaqaale liid wax ka aad ka baqaysaa ma jiro Wansangub ayaa loo sheegay in la geen doono xajka waxaana arintaasi u ballan qaaday isla markaana Muqdisho ka kaxeeyay wasiir Omar oo la sheegay in loo xil saaray khaarijinta Wansangub Nkrumah waxay ka mid tahay fanaaniinta waaweyn ee Soomaalida waxayna si aad ah iskaga agdhawaayeen Wansangub waxayna sheegtay saacado ka hor in Wansangub uu jiro xajka isla markaana ballanqaadkaasi ay ka heleen wasiir Omar laga qaaday garoonka Muqdisho ayaa waxa qaab afduub ahaan ah laga dajiyay garoonka magaalada Addis Ababa waxaana Wansangub lagu qaaday diyaaradda Ethiopian Airlines halka loo wada waxay ahayd xajka laakiin markii la marayay Addis Ababa waa la dajiyay Wansangub waxaana la geeyay isbitaal halkaas oo aakhirkii saacado ka hor abwaanka lagu sumeeyay haddaba aan dhageysano Nkrumah oo sheegaysa in Wansangub uu jiro xajka وهلا مقع هوبلده وابن waxaan u wadaa hambalyo iyo mahadcelin inuu sameeyay wasiir Omar kaas oo ka dalbaday inuu noo qaado Sangub oo noo geeyo isaga Sangub baa wuxuu yiraahday xajka ligeela maskaxda ay soo noqon lahayd sidaas darteed anigoo codsaday inaan alla xajki aado ayaan waxaan iri aniga xajkayga iska daa wasiir aan kuugu imido waxaan ka bariyaa tayda ala suuqa ka soo gadanaya wiilka odaga Sanguba nooqa hadii ilaahay idmo mahad baan kaaga celin doonaa hadii maskaxda u soo noqoto sida darteed buu yiri okay anigu tikidkayga suuqan ka goosay Sangubna isaga u gooyay sidaas uu ku tagay Sangub magaalada yiraahdo Makka annagu hadaanu nahay howlada warqadii waligiina ma ilaabayno waxaan ku leenahay ninka hadii maskaxda u soo noqoto ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu adiga maskaxdaada waligaan adeegsatid waxa dalbatido adduunka iska dalbatido ilaahay uu ku siiyo waliba waxaan ahay anigu asalow la eegto waligoodan ee dilino Soomaali ilkeed ay ku inda kushaan iyo waxaan astaan qarab afka waxaan ka sheegno aan weydiistay ee banawada ee qabaayay ee wasiirow waxaad u baahantay Allah ku afkay هو نحريستي أبوانكي وينها سوماليات محمد عبد الله عيسى سنجوب أيا لغو وضا إنسي قرصودي لو آسو سي أن لو أغانين سنت لدوري أبوان سنجوب كهر إنتو سن ديمانين أنا أمريكا لغو جاية مقالة عدس أبابا بحية محمد عبد الله فرماجو مدحوينها صوماليا وحونا عطسيكا كيميد أبي أحمد إثيوبيا وحي عدوغيدا كوبادة صوماليا واركيسا إنو يحي أبوان محمد عبد الله عيسى وين كاكسو هرجيدي دولة إثيوبيا ونا أركيي صوماليا عدوغيدا كوباد إنay tahay إثيوبيا ayaa qorsheynaysa in mid ay u disho shakhsiyaadka wadaniyada ay ku weyn tahay ee Soomaalida waxa dhawaan farmaajo dawladiisa afar dekedood oo Soomaaliya ku yaal ay siiyeen dawladda Itoobiya shakhsi walbo aragti dheer leh waxa la qorsheynayaa in la dilo kol hore Itoobiya waxa lagu wareejiyay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax waxaana jira shakhsiyaad si qarsoodi ah loo dhoofiyay oo loo geeyay Itoobiya kuna jira xabsiyada Itoobiya kuwaas oo loo arki karo inay ka hadli karaan ama ay ka dagaalami karaan dekedaha Itoobiya la siiyay Soomaaliya ee leedahay farmaajo iyo Khayre ayaa hadda qorsheynaya gabi ahaanba in Itoobiya ay hoosgeeyaan Soomaaliya dhawaan ayay ahayd markii lagu soo daawacay website-ka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ee leedahay khariidada
Ethiopia oo la sheegay in Soomaaliya Ethiopia ay ku jirto waxaana socdo qorshe la rabo in Muqdisho iyo waliba in Soomaaliya inteeda kale la hoosgeeyo magaalada Addis Ababa waana midda ay ku riyoonayaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo tiimkiisa laakiin ma oga wali Soomaalidu inay nooshahay boqolaal abwaan Sangub oo kala ahna wali ay nool yihiin haddaba la soco qaabka loo dilay abwaan Sangub barnaamijyo kale oo taxana ah oo aan ka sameyn doono mishinka qorsheysnaa ay Sangub lagu qaarajiyay Allahu naxariistay haddaba u duceey abwaanka inuu Ilaahay naxariistii janno uu siiyo